Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wiil isagoo yar oo faqri ah abaal gabar ah u gashay una guday isagoo dhakhtar weyn ah. Wiil yar oo lagu magacaabi jiray Howard Kelly oo ku dhashay gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka bishii Febraayo 20-keedii sanadkii 1858 ayaa wuxuu wiilkan ka dhashay cid faqiir ah ama sabool ah, wuxuuna subaxii ama aroortii u dhigin jiray iskool. Galabtiina wuxuu wareejin jiray oo tuulada ay reerkooda degnaayeen ku iibin jiray alaabo yaryar oo uu ka raadin jiray lacag uu iskoolka isaga bixiyo. Haddaba galab galbaha ka mid ah isagoo wareejinaya alaabtii ayaa waxaa qabatay gaajo aad u daran maadaama uusan subaxaas helin quraac. Lacag uu wax ku gatana ma uusan haysan. Wuxuu ku fikiray in cid ka mid ah reeraha uu wax ka iibinayo inuu weydiisto wax uu cuno. Albaabkii ugu horreeyay markuu garaacay waxaa ka furtay gabar yar oo ay isku da' yihiin. Wuu isku naxay wuxuuna ka xishooday inuu weydiisto wax uu cuno, laakiin wuxuu ku yiri, fadlan walaal, koob biyo ah isii. Gabadhii yareed gurigii ayay ku laabatay waxayna u keentay koob caano ah oo buuxa. Isaga oo yaaban ayuu cabbay caanihii. Markaas ayuu weydiiyey, imisaa lacag la iga rabaa? Gabadhii waxay ku jawaabtay, gaajo ayaan kaa dareemay. Hooyadayna waxayna bartay in naxariis haddii aan falno inaanan lacag ku qaadan. Howard wuxuu yiri, haddii ay saas tahay kaliya laab waan kaaga mahadcelinayaa abaalka aad ii gashay. Howard wuu soo tegay isagoo dareemay naxariis iyo raynrayn aanan la suurayn karin galabtaas. Markii laga soo wareegay sanadooyin badan kadib waxaa xanuunsatay gabadhii. Xanuunkeedii waa lagu wareeray. Tuuladii ay joogtayna waa laga soo kaxeeyey. Waxaa la keenay cisbitaal weyn oo ku yaala magaalada. Dhakhaatiirtii ka shaqayn jiray cisbitaalkii la keenay waxay isku dayeen inay ogaadaan xanuunkeeda. Markay iyagiina ku adkaatay inay gartaan xanuunkeeda ayaa waxaa xaaladeeda lala socodsiiyey dhakhaatiirta sare. Dhakhaatiirta sarena waxaa ka mid ahaa wiilkii yaraa oo ay abaalka u gashay kaasoo lagu magacaabi jiray Howard Kelly. Dhakhaatiirtii lala tashtayna waxaa ka mid ahaa Dr. Howard Kelly. Markii loo sheegay meesha ay ka timid haweenta xanuunsan wuu isbedelay. Durbadiina dareen ayaa galay. Wuxuuna ka codsaday dhakhaatiirta xaaladda uga sheekaysay inay u tilmaamaan qolka ay jiifto. Dhakhtarkii wuu dul yimid haweenaydii. Inkastoo xanuun iyo duruuf ay ka muuqatay, laakiin horay ayuu ka gartay. Wuxuu Dr. Howard go'aansaday markuu ka soo laabtay qolkii ay jiiftay inuu si gooni ah uga warqabo xaaladdeeda uuna gacanta ku hayo ilaa ay ka bogsoonayso. Dhakhaatiirtii kalena wuxuu la socodsiiyey in xaaladdeeda saacad loola socdo. Ugu dambeyntiina waa lagu guulaystay in la daweeyo oo Alle ayaa caafiyey haweenaydii. Wuxuu Dr. Howard ka codsaday xafiiska lacag qabashada cisbitaalka in biilka haweenaydaas la soo marsiiyo inta aanan loo geyn iyada. Warqaddii biilka cisbitaalka ayuu meesha hoose wax kaga qoray. Kadib ayuu yiri, hadda ha loo geeyo. Haweenaydii oo naxsan oo ka fakaraysa lacagta lagu soo dalici rabo iyo inta ay noqon doonto iyo sida ay ku bixin lahayd maadaama uu kharash badan ku baxay ayaa warqaddii loo keenay. Markii ay warqaddii aragtay way ka naxday lacagta ku qoran iyo tiradeeda. Kadib ayay meesha ugu hooseysa warqadda ku aragtay hadal gacanta lagu qoray oo ah paid in full with 1 glass of milk, taasoo macnaheeda ah waxaa lagu wada bixiyey hal koob oo caano ah. Haweenaydii farxad darteed ayaa ilin soo dhaaftay. Ilaan way ka shakisaneyd dhakhtarkan weyn oo subax kasta dul taagan, weligiisna meel ay ku sheegtana ma aysan garanayn. Kadib ayay waxay ku tiri, kaliya laab waan kaaga mahadcelinayaa asxaankaad ii fashay. Dr. Howard Kelly wuxuu ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada haweenka ku dhaca oo aad looga yaqaanay dalka Mareykanka waqtigii uu noolaa. Wuxuuna geeriyooday bishii January 12-keedii sanadkii 1943 isagoo 84 sano jir ah. Dulucda sheekadu waxay noqonaysaa haddii aad asxaan ama abaal mar uun aad fasho, mar uun ayaad heli doontaa.